qarnigan gumaysigii deelqii shagalayo qurumuhu xoroobeen kii qaybidin helay ha ka qaylininaba maqarnigan gumaysigii deelqii shagalayo qurumuhu xoroobeen kii qaybidin helay ha ka qaylininaba qarsoodi wuu dhamaaday kay qalooc la tahayo annagu quusidiinay qarsoodi wuu dhamaaday kay qalooc la tahayo annagu quusidiinay qorraxdii xornimadiiyo qaranniman haleelayo annagu quusidiinay waxaa barnaamijkani idin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah Axmed Taajir kusoo dhawaada Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse waxaana la ka qaban waayo qarqarsiga ku jooga mayna qoob saclay iyo qaar kaloo kaliito u qaadhabanaya وعنو wanaagsan walaalahayga dhiiga iyo dalka aynu wadaagno ku soo dhawaada barnaamij aanu ku lafaguri doono mudnaanta ay leedahay maalinta 9 Juun waxa subaxnimadii 9 Juun ee sanadkii hore hal mar isqabsaday shacabka magaalada Muqdisho oo dareenkooda si wada jir ah u mideeyay waxaana maalintii ku xigtay ay gobolada dalka Soomaaliya ayaguna ay sameeyeen barnaamijyo ama kacdoon ay uga soo horjeedaan heshiiskii Kampala Accord sidoo kale waxa isla maalintaasi dhammaan dunida halka ay Soomaalidu kaga nooshahay meel walba ha ahaato waxa kacdoonkaasi uu si wada jir ah isku qabsaday waxayna si cad u sheegayeen inay ka soo horjeedaan heshiiskii Kampala oo ay arkayeen mid aanu ka turjumayn dadnimadooda waxayna taageero culus siinayeen xukuumadii uu hoggaanka u hayay Haliim Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma fududayn in shacab muddo 20 sano ah ku jiray dagaalo iyo colaado ay si wada jir ah kacdoon u sameeyaan gudaha iyo dalka iyo dhammaan meelaha ay Soomaalidu ku sugan tahay ayadoo taasi laga dhadhansan karay sida shacabka Soomaalida ugu heelan yihiin nabadii horumarta badalkeedana ay uga soo horjeedaan qabyaaladii qurunkeeda shacabka Soomaalida oo 9 Juun ka hor waxaa loo haysay kuwo kala go'aan qabiil qof walba inuu taageero qofka ku heybta ah laakiin waxa maalintaasi cadaatay in shacabka Soomaalida ay yihiin dad isjecel balse ay u baahnayeen hoggaan daacad ah malaayiin qof oo Soomaali ah ayaa fadhiga ka wada kacay inkastoo aan kamid ah dadkaasi haddana shucuurta dadka Soomaali ayaa laga dheehan karay kuwa aad u qiiraysan waxaana isku soo dhawaanayay qalbiyada ummadda waxaana la moodayay inuu sii dhamaanayo culayskii qabyaaladda waxaan hal mar la wada dhahay nabad baan rabnaa nabad anagu dhalinaan rabnaa qiimaha iyo wanaagga maalintan uu leedahay ayaan ahayn mid halkan lagu soo koobi karin iyadoo kacdoonkaasi uu ahaa mid sidii la rabay u dhacay inkastoo waxyaabo fara badani ay harsan yihiin insha Allah oo rajaynayn in guulahaasi la gaari doono shacabka Soomaalida oo anaagahay in ay yihiin kuwa geesiyaala waxaan ku buurinay in dunida wax walba markii la qaado ama loo istaago aan horey laga gaarin isla markaana wax walba ay qaataan waqti kacdoonka 9 Juunna waxyaabo fara badan oo guula ah baa laga soo hayay taasi oo aan isleeyahay way ugu weyn tahay markii shacabka Soomaaliyeed ay diideen xariiqa shisheeye waxayna taasi laf dhuun gashay ku noqotay dadkii soo dirsaday labadii mooyee talada sare hayay nin walba oo wanaag sameeya waa mid geli doona taariikhda isla markaana baal dahabi ka geli doona qalbiyada ummadda Soomaaliyeed haddaba xusuusno inaad noqoto qof magacsan ku dhinta maadaama uu qof walba oo dunida jooga uu dhimanayo ama uu geeri dhimin doono waxaa weli socda kacdoonkii 9 Juun soo bilowday iyadoon ahayn sidii uu ku socday qaabkii banaanbaxa haddana kacdoonka wada ayaa waxay sheegayaan in guushu ay muuqato kacdoonkan uu soo afjarmi doono maadaama uu Rabbi nagu galadsiin doono waxyaabihii aan u kacdoonnay oo aan u istaagnay banaanbaxani oo shacabka Soomaaliyeed ay ka muujiyeen dareenkooda iyo dadnimadooda ayaa waxaan jecel inaan soo qaato codadka qaar ka mid ah dadka dareenkooda
dadka Soomaaliyeed waxaan diidanahay wixii qaranka Soomaaliyeed wixii ka soo horjeeda nabadda wixii ka soo horjeeda waxaan diidanahay maamulka dibadda lagu soo lacagta la siisaayo Soomaalida la kala gadaayo oo wax walba ee qaranka in lagu dumiyo la rabo ayaan diidanahay ma ogolin haddana dadweynaha Soomaaliyeed haddana ciidamada dalka Soomaaliyeed haddana waxaan rabnaa nabad waxaan u dagaalamo waxayna nabad Soomaaliyeed waxaan u dagaalamaynaa gobonimo wax walba wixii Soomaali nabad ka dhalihayaan taageersanahay annagu ma taageersanin dollar haysto naftayda maalkayga ku weyn goorgooraan ku dhaawacan hadeeraan dhaawac ka soo bax banaan bixin nabadeedaan ku dhaawacbay hadeerna waxaan diyaar u ahay in Soomaaliya nabad hesho in dadweynaha Soomaaliyeed nabad helo in carruurta iyo hooyooyinka wax walba gumaadka lagala helo nabadda waxaa ka soo horjeeda Shariif Sakiin iyo xulufyada oo wato mana doonayno حلكة كما تجي كلا فرمان حلكة أنا ما هي وما هي ولا شريف دمانتك دو شريف هدع بهيك هدع أنا قال ما تفعل يعني ما تبصجين وحنا كسر كهيدا قاعد تجالي دي باطة مركبتي يا رجلي ومتكر كبحة نكذا الغار استنى بحد علن دولة كسامالي بحد علن أباس تبين بحد علن شريف بحد علن دولة كسامالي waxaan ka soo qayb galay maanta xafladan oo mataqaanaa sida fiican loo soo agaasimay oo lagu diidan yahay 10 qodob ee lagu soo gooyay in Uganda ee ah qodobo aan ummadda Soomaaliyeed aan u cuntumaynin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنجو كهاللينا مجا الصومالية دلينيردا إسلامية عسلادة وباسكت بولكا ومارتي مسؤوليتي وذنا محل ده نورهانتم شير مركا وحن شيء يا مانتي بنامبح أنصاب بنامبحنا وصومالي وين أردن أو سكدو بنامتي صوماليوي كا أو توسا oo maaragtay wanaag iyo nolosha iyo maaragtay caruurteena dhamaanaysa aan u gacan kacno Soomaaliya ha noolaato asraacdo manihi Abdulhaab magacay farxi halkan meesha waxa isugu nimid maanta hadii aan ummad Soomaaliyeed oo kala hareyn waxa isugu nimid inaan muujino maaragtay dadnimadeena iyo maaragtay waxa aan jecelnahay oo ah Soomaaliya inay mid tahay Soomaaliya inay gumeysrabin maanta mahiinka wuxuu wadan iska dhaaf maaragtay rag Soomaaliyeed caruurta iyo dumarkii aan fahmay marka waxaan leenahay mahiinka waa fashilatay meesha iskaga tag kuma baan meelan tawalaadiga hayata taariikhdu waa muhiim tawalaadiga hayata taariikhdu waa muhiim xukuumadda furmaha joogta taariikhda baad ku taala taariikhda Soomaaliyeed maltilmaan u tahay kala jirtaa tahay qaaraha kaadu tahay uftiin kala jirtaa tahay qaaraha kaadu tahay uftiin waxaa taban ahay sarabihi tamha kaaga dhigo waxaa taban ahay sarabihi tamha kaaga dhigo Allah taala dihinati ran la jabin
باقما إلهي بقر وهي مهاركيس باقما إلهي باقي هذه برياد إسكالي إلهي يوم باقي لا بهاد بعد النوم باقا آمين مدام باهنا soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse waxaana la ka qaban waayo qarqarsiga ku jooga mayna qoob saclay iyo qaar kaloo kaliito u qaadhabanaya soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse waxaana la ka qaban waayo qarqarsiga ku jooga mayna qoob saclay iyo qaar kaloo kaliito u qaadhabanaya qisadii ujeedadu maqoolkaas ku jiro qaarba meel ha jooga qisadii ujeedadu maqoolkaas ku jiro qaarba meel ha jooga qisadii ujeedadu maqoolkaas ku jiro qaarba meel ha jooga qisadii ujeedadu maqoolkaas ku jiro qaarba meel ha jooga maqarnigan gumaysigii diilqiisha galayo qurumuhu xoroobeen kii qaybidiin helay ha ka qaylininaba maqarnigan gumaysigii diilqiisha galayo qurumuhu xoroobeen kii qaybidiin helay ha ka qaylininaba qarsoodi wuu dhammaaday kay qalooc la tahayo annagu quusi diidnay qarsoodi wuu dhammaaday kay qalooc la tahayo annagu quusi diidnay qorraxdii xornimadiiyo qaranniman haleelayo annagu quursidiidnay qarsoodi wuu dhammaaday kay qalooc la tahayo annagu quusi diidnay qarsoodi wuu dhammaaday kay qalooc la tahayo annagu quusi diidnay qorraxdii xornimadiiyo qaranniman haleelayo annagu quursidiidnay nabaddu qaali weeye kii qayma ridayo wayno qaryabkii nabaddu qaali weeye kii qayma ridayo wayno qaryabkii inta hanta qabada qaarka sare bannaan yahay taagana qabyada tahay qalabka waan sidaynaaye inta hanta qabada qaarka sare bannaan yahay taagana qabyada tahay qalabka waan sidaynaaye kay qalooc la tahayo wayno qaryabkii inta hanta qabada qaarka sare bannaan yahay taagana qabyada tahay qalabka waan sidaynaaye inta hanta qabada qaarka sare bannaan yahay taagana qabyada tahay qalabka waan sidaynaaye kay qalooc la tahayo wayno qaryabkii
Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayso Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayso inta qaalinkoodii wala kale ku gurto oranjiyo bisada xuni isugu qayla gaysteen abaw raadin mayse Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayso Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayso inta qaalinkoodii wala kale ku gurto oranjiyo bisada xuni isugu qayla gaysteen abaw raadin mayse qaraalimi sharaftan ku gooyada u hurayo nabiya maalba qure qaraalimi sharaftan ku gooyada u hurayo nabiya maalba qure qaraalimi sharaftan ku gooyada u hurayo nabiya maalba qure qaraalimi sharaftan ku gooyada u hurayo nabiya maalba qure ninkeeban qonofkiyo kaan sameeris garano saxiibadii quyaxo aan ka qaadan karin oo loogu qoos dhabaaya ninkeeban qonofkiyo kaan sameeris garano saxiibadii quyaxo aan ka qaadan karin oo loogu qoos dhabaaya ورحدي حرني مديو قرني من على الليو عنك قرص ديني أصولي ودمع ديكي غلوع لتهيو عنك قرص ديني أصولي ودمع ديكي غلوع لتهيو عنك قرص ديني ورحدي حرني مديو قرني من على الليو عنك قرص ديني نبض قالي ويه في قيم الردي ويلو قريتي نبض قالي ويه في قيم الردي ويلو قريتي قلب كوان سيديناي انت هانت قبض عقارك سرب النية هيتا كان قبيضة هاي قلب كوان سيديناي كي قلو على تهيو وينو قريبكي انت هانت قبض عقارك سرب النية هيتا كان قبيضة هاي قلب كوان سيديناي انت هانت قبض عقارك سرب النية هيتا كان قبيضة هاي قلب كوان سيديناي